waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan daawadayaasha kanaalka SaaS Software waxaad ku soo dhawaataan kooraskeenii aan idinku talagalay fasaxan maadaama la kordhiyey waqtigii ama fasaxii dadka loo fasaxay xanuunka COVID-19 awgii. Waxaan idinku soo talagalay inaad idinka guryihiina joogta aad kaga faa'iidaysataan kooraskan loo yaqaano HTML iyo CSS oo idin soo diyaariyey walaalkiin Casiir Aadan. waxaynu ugu horreynba eegaynaa inagoo soo kala hormarsan doona labada kooras si ay yihiin isku koorasuun oo aanay kala hadhaynin. HTML iyo CSS waxaynoo soo horreyn doonaa insha Allahu tacaala qaybta hore ee HTML-ka inagoo eegi doona muxuu yahay HTML, waxyaabaha loogu baahan yahay iyo sababta aynu u dhiganayno iyo faa'iidada uu inoo leeyahay. HTML maxaa uu yahay? HTML ugu horreyn waxaa loo soo gaabiyey HTML Hypertext Markup Language ayaa loo soo gaabiyey. Sidoo kale HTML waa software yar oo wax lagu edit gareeyo ama ku samaxaya inaad kood ku qori karto si uu kugu soo bandhigo wax la fahmi karo markaasi adoo ku qoraya marka hore qoraal ka kooban text ama qoraal la fahmayo iyo calaamado ama symbols aad ku qorayso isla markaana ku soo saaraya hadhow qoraal kaliya oo la fahmi karayo ayuu ku soo bandhigi doona insha Allahu tacaala. Marka lagu leeyahay waa software wax lagu edit gareeyo, editing-ku waa uu fara badan yahay. Waxaa jira kuwa video-ga la edit garaynayo, waxaa jira kuwa codka la edit garaynayo, waxaa jira kuwa qoraalka la edit garaynayo, isaguna waxaa jira waa aad u fara badan yihiin. Marka editing-ka aynu macnaha ula jeedno HTML-ka waxbaa lagu edit garayaa, waxa weeye koodkaaga waxbaad ka bedbedeli kartaa, waxna waad ku soo dari kartaa adaa xor u ah. Marka taas ayaa la odhanayaa editing. HTML sidoo kale waxaa la odhanayaa waa web pages ama web design ayaad odhan kartaa, oo waxa weeye website-ada ayaa lagu dhisaa. Sidoo kale waxaa lagu dhisaa databaseska ayaa lagu dhisaa. waa faa'iidooyinka uu inoo leeyahay aynu barayno HTML. website-ada ayaa lagu dhisaa. website fara badanna waynu arki doonaa insha Allahu tacaala oo lagu dhisay web page ama HTML lagu dhisay. Sidoo kale waxaa markaasi lagu qeexi karo aynu isla ogaanay HTML in lagu qeexi karo web pages ama web design. waxyaabaha loo isticmaalo weeye HTML software waa software salo ah ama programs waa software yar oo salo ah programmeska oo lagu dhiso qalfoofta sare ee markaasi application-ka, websiteska iyo database-ka iyo wixii lamid ah. Marka shaqada isagu uu leeyahay HTML iyo CSS oo markaasi iskaashanaya waxa weeye in lagu dhiso qalfoofta application-kaaga ama website-kaaga ama database-kaaga inaad qalfoofta sare ku dhisto. Qaarna waa ruuxdii sida PHP oo kale oo markaasi waxa weeye iyagoo function-kii qabanaya iyo markaasi tusaale ahaan haddii database astaado samee qalfoofta sare ama design-ka sare ee markaasi interface-ka laga gelayo markaanu ku dhisno HTML iyo CSS aan isku qurxinay waxaa ubcudii hoose ama backup-kii noqonaya ama qaybtii wax kaydinaysay waxaa noqonaysa iyaduna MySQL ama kuwa kale markaasi qabta ama SQL
server ayaa kamid ah oo markaas iyaguna noqonaya halkii wax lagu kaydinayay. labadooda waxa kala dhex adeegi doona hadaan tusaale ahaan database markaan sameynayno waxa kala dhex adeegi doona PHP oo iyaduna ruuxdii ah macnaha markaasi qoraalkii ama wixii interface-kan HTML-ka iyo CSS-ka ku dhisan la geliyo oo gudbinaysa qaybtii kaydinaysay ee SQL-ka ama MySQL-ka. markaasi HTML waa CSS-ka dhisida programming-ka iyo software-ka isaguna weeye. HTML waxa koodkiisa lagu dhex qori karaa software-ka kala ah Notepad++ iyo Sublime halka Summit maaha waa Sublime Text ayaa isaguna lagu dhex qori karaa. tusaale ahaan xagee laga kala heli karaa Notepad-kan waxa iska wata kombiyuutarada oo dhan waa iska wataan oo markaasi waxa weeye waxay kombiyuutaradu iska wataan kombiyuutar kastana waad ka heli kartaa. hadhow markaad koodhkaaga aad save garaynayso ayaad xagga dambe kaga daraysaa .html aad ka raacinayso si uu kombiyuutarku u fahmo inuu waxani ama faylkani yahay HTML. Notepad++ka iyo Sublime Text-ga labadaasina waa software yar oo iyaguna lala soo dego kombiyuutarka ku soo biirin karto. labadan software-radana waxa aad u dambeeyay ama aad u fiican Sublime Text-ga ayaa aad u fiican. haddaba waxaa jira calaamado loo isticmaalo HTML koodhka oo markaasi markaynu koodhka sameynayno aynu magacaabi doono ama aad iyo aad muhiim inoogu noqon doona. calaamadahaasi waxaa kamid ah double rotation ama calaamadan oo afkeena Soomaaliga aynu ugu yeedhno kulmo ugu yeedhno ayaa kamid ah. laakiin marka koodhka HTML la joogo loogu yeedho double rotation. waxaa kamid ah calaamada equal ama lamid aynu af Soomaaliga ugu naqaano ayaa iyaduna kamid ah. waxaa kaloo iyaguna kamid ah calaamadahan ka yar iyo ka weyn ee xisaabta markaan dhigan jirnay loo yaqaanay ka yar iyo ka weyn oo marka HTML koodhkiisa la joogo loo yaqaano tags. labadoodan oo la kala qaaday ama marna furan tahay marna xidhan. markay sidan u furan tahay waxaa loo yaqaanaa tag furan, markay sidan u soo xidhan tahayna tag xidhan ayaa loo yaqaanaa. waxaa kaloo jira kuwan ama calaamadan dhibic iyo rotation hoos yaala semicolon ayaa loo yaqaanaa iyagana. calaamadan ayaa kamid ah parameter-ka jiifa iyadana calaamadan waxaa loo yaqaanaa parameter marka koodhka HTML la joogo. haddaba waxaynu u baahannahay calaamadihii soo baranay concept yar oo inagaga filan HTML waynu soo qaadanay. maxaan u baahanahay markaan u qalab qaadanayo ama aan uliya kaba qaato inaan practical sameeyo HTML waxyaabaha laga baahan yahay xageese markaan HTML-kii koodhkii aan qoro aan ku tijaabinaya ama ku rangaraynaya si aan u arko inuu koodhkaygii sax yahay iyo in kale. HTML waxaa lagu rangareeyaa browser kamid ah browseradaada ama hadba kaad haysato sida tusaale ahaan Chrome-ka iyo Firefox-ka iyo wixii lamid ah ayaad ku rangaraynaysaa markaad koodhkii aad qorto intaad save garaysay kadib intaad qortay koodhkaagii markaad si save garaysay ayaad kadib run odhanaysaa. hadhow koley practical-ka waynu ku arkaynaa oo toos ayaynu waxaanu sharaxayna u sameynaynaa hadday calaamadihii tahay iyo hadday dhulka lagu rangaraynayo tahay iyo si loo save garaynayayba. marka waxyaabaha lagu rangareeyo ee muujinaya ama ku tusaya ama ku soo bandhigaya koodhkaagu inuu sax yahay iyo inuu qalad yahay waxaa kamid ah browserada
nooca doonaha ee Chrome-ka ay ka mid yihiin iyo Firefox-ka. Calaamadahan aan ku soo aragnay xagga sare markaas ma ka soo muuqanayaan markaasi browser-keena ama ma ka soo bandhigmayaan. Waa su'aal muhiim ah inay calaamadahan soo qaadanay ee haddeer aynu slide-kan ka horeeyay aynu soo qaadanay sida aan ugu qornay hadhow ma uga soo muuqanayaan markaynu rangarayno page-keeni HTML-ka. Su'aashu waa maya, browser kama soo muuqanayaan, waxa weeye uun isticmaalaynaa laakiin qoraalka wixii ah ee markaasi aynu calaamadahaasi dhex gelino ayuunbaa inooga soo muuqanaya insha Allahu tacaala. Intaasi waxaa inoogu dhan casharkeenii koowaad oo maxay ahayd introduction HTML ah. Intaynu insha Allahu tacaala casharka labaad u galayno dilaantinba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Fadlan intaad guriga joogto ka faa'iideyso waqtigaaga oo maxay ahayd geli waxaad beri ka maalin ku macaashto ama ku faa'iido waxna ku taraya. Waa ogahay kolley dad badan waa fasax maxay ahayd guryaha la iska wada joogaa xanuunka COVID-19 awgii ayaa fasax loo wada yahay. Markaasi maadaama aad fasaxaagan aad guriga iska joogto fadlan ka faa'iideyso haddaad computer haysato. Software-kan yar HTML-kana waad la soo degi doonaa insha Allahu tacaala. Kadib practical-ka si toos ah ayaynu u wada samayn doonaa dhammaan ardayda igu wada xidhan. Asalaamu calaykum.